soo dhawaad saaxiibayaal waxaa maanta iscasilaad siyaasadeed oo culus ku dhawaaqay xogiyihii guud ee xisbiga JSP xildhibaan cabdiraxmaan Odowa oo lagu tirinayay saaxiibada dhow ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ah gudoomiyaha xisbiga JSP ayaa ku dhawaaqay in xilkii iyo xubinnimadii xisbiga uu ka tagay. Haddaba waxaa isweydiin mudan Odowa maxaa keenay xilligan inuu ku dhawaaqo inuu ka tagay xilka iyo xubinnimada xisbigaasi, maxayse tahay ujeedada ka dambeysa ee xilligan loogu soo beegay ku dhawaaqistiisa? Ma qorshe kale ayaa jira mise hami siyaasadeed ayuu ka galay kursiga madaxweynaha xildhibaan Odowa? Warbixinteena ayaynu ku eegi doonaa qodobada u uskaday iscasilaadiisa. War qoraal ah oo uu soo saaray xildhibaan cabdiraxmaan Odowa ayuu si faahfaahsan ugu sharxay qodobo saldhig u ah go-aanka uu qaatay ee ah ka tegistiisa xilka iyo xubinnimada xisbiga, kuwaas oo si weyn u taabanaya jihada siyaasadeed ee dalka iyo habka maamulka xisbiga. Wuxuuna ku soo koobay 5 qodob, isagoona qodobka koowaad uga dhigay habka maamulka talada iyo tan xisbiga ee JSP. Cabdiraxmaan Odowa ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya inuu talada dalka iyo tan xisbiga ka dhigay mid ku ururta hal shakhsi, isagoo aan tixgelin siin aragtida kale iyo talooyinka ka imaanaya xubnaha xisbiga iyo hay-adaha dowladda. Ayuu yidhi tani ayaa xildhibaanku wuxuu ku sheegay inay wiiqayso wadatashiga iyo hufnaanta dowladnimada. Xildhibaanka ayaa si adag ugu hor yimid hanaanka loo maray wax ka beddelka dastuurka, isagoo ku tilmaamay mid aan loo marin wado wadajir iyo heshiis bulsho. Wuxuuna xusay in qaar ka mid ah qodobada la bedelay ay halis gelinayaan midnimada, wadajirka iyo mabaadi'da guud ee federaalka dalka qaatay. Qodobka saddexaad ee xildhibaan Odowa war-saxaafadeedkiisii ku sheegay sababna u ahaa inuu ka tago xilka iyo xubinnimada xisbiga JSP ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu ku adkeysanayo hanaan doorasho oo aan loo dhammayn wadatashi siyaasadeedna laga galin, taas oo keeni karta ayuu yidhi kalsooni daro iyo khilaaf hor leh. Wuxuuna ku baaqay in doorashooyinka lagu saleeyo heshiis siyaasadeed oo ay wada gaaraan dhammaan saamiilayda siyaasadda dalka. Qodob kale oo xasaasi ah ayuu war-saxaafadeedkiisii ku sheegay xildhibaan Odowa, kaas oo ah siyaasadda ku wajahan dowlad goboleedyada. Xildhibaanka ayaa sheegay inuu si weyn ugu soo horjeedo waxa uu ku tilmaamay burburinta dowlad goboleedyada, isagoo carabka ku adkeeyay in ay yihiin dowlad goboleedyadu laf-dhabarta nidaamka federaalka iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, war-saxaafadeedka uu soo saaray xildhibaan Odowa ayaa waxa uu ku cambaareeyay xanibaadaha lagu hayo muwaadiniinta, gaar ahaan xildhibaanada leh xasaanadda sharciyadeed. Wuxuuna arrintaa ku tilmaamay mid ka hor imaanaysa dastuurka, madax bannaanida baarlamaanka iyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadiniinta. Xildhibaan Odowa ayaa sheegay in dhammaan qodobadan iyo kuwa kale oo badan aan halkaa lagu soo koobi karin ay ku qasbeen inuu qaato go-aan adag oo uu kaga harayo xisbiga iyo wada shaqayntii siyaasadeed ee uu la lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wuxuu tilmaamay in laga bilaabo maanta uu qaadi doono jiha siyaasadeed oo cusub, isagoo muujiyay inuu diyaar u yahay la shaqaynta cid kasta oo ay ka dhaxayso ilaalinta midnimada iyo wadajirka iyo mabaadi'da Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, xildhibaan Odowa ayaa shacabka Soomaaliyeed u rajeeyay mustaqbal ifaya oo ku dhisan nabad, dowladnimo hufan iyo wadajir qaran. Iscasilaadan ayaa imaanaysa xilli siyaasadda Soomaaliya ay wajahayso marxalad xasaasi ah, iyadoo khilaafaadka la xiriira dastuurka, doorashooyinka iyo nidaamka federaalka ay weli yihiin arrimo u baahan xal wadajir ah.